waxaan idiin soo gudbi doonaa qiso kale oo murugo wadato qisadan magaceedu waxaa la dhahaa anigu wuxuu saaxiib igula ahay lacagta aan haysto jacayl been ah ayuuna ugu abuuri jiray qisadan ayaan idiin soo gudbi doonaa halka ka daawanaysiin waa barta YouTube Facebook TikTok dhammaan ay noogu wada qoran yihiin socdaal 24 qisada waxay ku bilaabanaysaa sida tan gabadha qisadan noo soo gudbisay magaceedu waxay noogu qortay Maariyo waxay dhahday waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho in muddo ayaan waxaan jeclahay inaan sameysto xiriir jacayl oo qurux badan ay dhahday kadib waxa ii suurta gashay xiriirkaas jacayl ee quruxda badan inaan sameysto wiilka xiriirka jacayl ee la sameynaysa Maariyo waxa la xiriirkooda jacayl waxa uu ka bilaabay magaalada Muqdisho gaar ahaan Muqdisho sida ay noogu soo koobtay kadib waxaan isku baranaa ay dhahday mid kamid ah iskuulada ku yaalo isla magaalada Muqdisho dhahday waxaan qari doonaa iskuulka magaciisa iyo goobta ku yaalo maadaama xanuunka badan ku dhacay Maariyo waxay dhahday wiilkaas markaan isbaranay iskuulka waxa uu ahaa wiil aan break soo bixin inta badan waxa uu joogi jiray ay dhahday fasalka ma uusan soo bixi jirin breakna sidaas ayuu fasalku u jiray muddo markaan isbaranay kadib waxaan noqonay laba qof oo isku xaafad ah sidoo kale isku dhow ayaan noqonay muddo xiriirkii walaaltinimo markuu socday waxa dhashtay xubba jacayl sidoo kale waxa dhashtay miraha jacayl ee aad ku quruxda badnaa aniga ayaa la hormaray oo dareenka jacaylka sheegtay asiguna uu iga aqbalay si qurux badan aabahay wuxuu ahaa ganacsade suuqa ugu weyn ee bakaaraha ayuu wuxuu ku lahaa dukaamo waaweyn hooyaday waxay ku nooleed Ingiriiska ayay dhahday Maariyo aniguna waxaan joogay magaalada Muqdisho Maariyo waxay dhahday marka laga soo tago iskuulka in aan ka bixiyo lacagta bisha sidoo kale saaxiibkay waxaan sii jiray wax walba u baahdo hadii ay noqoto waxaan sii jiray ay dhahday labiskiisa iyo wax walba u baahdo halkaas ayaan ku soo afmeerayaa qaybta koowaad qisadii xanuunka badneed ee ahayd jacayl been ayuu ugu abuuri jiray asagoo fiirsanayo hantida haysto la soco qaybaheena kale oo xiiso badan haddii aan ugu cusubtaana waxaad ka daawan kartaa barta YouTube TikTok Facebook dhammaan ay noogu wada qoran yihiin socdaal 24